nebiga meesha uu ku duugnaa ama lagu duugay laba makaan ayaa ka bannaanayd. abibakar markuu dhintay makaankii labaad ayaa lagu duugay. hal meel ayaa harsanayd. meeshaa harsaneed cumar ibn khitaab radia allahu tacaala canhu waa tii la dilay ee ninkii majuusiga ee abulu'lu almajuus la yidhaahda uu dilay. cumar ibn khitaab salaadii subxeed ayuu dadka dujinaayey. suuratu yuusuf ama racdi ayuu aqrinayey sida xadiiska tilmaamay. intaa ka gadaal ayaa ninkaa majuusigaa soo galay masaajidka. mar allaala markuu safka la soo sinmay ayaa tooreydii uu watay cumar uu ku dhuftay. cumar mar allaala markii mididii ay gaartay wuxuu yidhi ma waraabay cunay mase waa lay dilay. ibni cabbaas wuxuu yidhi anigu dadka ilmaha yaryarkaa ayaan ku jiray, mana dareemin xikaayada iyo camaliyadda meesha ka dhacday ilaa cumar qiraa'adiisa oo go'day maahane. mar allaala markuu cumar adkaysan waayey gacanta ayuu gadaal u taagay. cabdiraxmaan ibni cawf ayuu soo qabtay oo horay markaa keenay si uu asaga u dhammaystira salaada ummadda ma faaruqin oo ay waa ku jiraan. cumar meesha ayuu jiiftay. ninkii majuusiga ahaa intuu safafka soo dhex maraayey meebada ama midida uu watay labada dhinac ayay afka lahayd. ilaa iyo 12 qofood ayuu soo dilay. mar allaala markuu bannaanka soo gaaray uu damacsanaa inuu baxo, nin hubusta wata ama go'weyn ayaa ka hor yimid. kii ayaa ku qabtay. mar allaala markuu arkay mididaan oo dhiigle ninkan oo wata. intaa ka gadaal markuu is yidhi waa lagu qabtay ayuu nafsadiisa gowracay ninka oo wuxuuba dhintay cumar hortiis. cumar mar allaala markii salaada laga baxay ayuu yidhi ii soo raadiya qofka i dilay. waxaa la soo ogaaday abulu'lu almajuusi inuu markaa ahaa. ilaahay ayaa mahad iskale geeridayda aan ku sababin qof muslim ah ayuu yidhi cumar radia allahu tacaala canhu. waa la soo qaaday. markii la soo qaaday oo la keenay gurigiisa la keenay dadku waa ka daba socdeen. waxaa la siiyey casiir iyo shay la cabo. meeshii midida ayay ka soo baxday. xaaladdu markay meeshaa gaartay waxaa la ogaaday cumar ama xaalad khatara inuu markaa ku jiro ayuu markaa ogaaday. wuxuu u diray nin wiilkiisa cabdullaahi ibni cumar oo yidhi bax caaisha soo weydii in meesha ka bannaan nebiga aniga laygu duuga iyo in kale. caaisha way u ogolaato waxay tiri anaa isugu talagalay laakiin waa u fasaxay. sidaa darteed ayuu cumar yidhi inay iga xishoonaysaa dhici kartee haddaan dhinto oo janaasadeeda la qaado mar labaad weydiiya. hadday ii ogolaata igu duuga, haddaysan ii ogolaaninna baqiic iyo qubuuraha muslimiinta i geeya. cumar markuu dhintay waa la qaaday meeshaa la geeyey. caaishaa fasax looga qaaday ayaduna way u ogolaatay. sidaa darteed ayaa nebiga iyo abibakar iyo cumar saa ay iskula duugan yihiin magaalada madiina. nebiga haddaba waa naga dhintee aan dadaalno. dhibaatadaasuu soo maray, diintaasna rafaadkaasuu u soo maray. wafaadkii nebigana meesha ayaan ku soo gebagabaynaynaa. wa aquulu qawlii haada waastaqfiru allahu lii walakum wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacala.